السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وتيسيريس عثمان دمان أمة الصومالية ميل كستو جوجتو ونسلامينا سلامة إسلامك وسلامينا وحنا كو سلامينا مقالة برعو قبل كتوغدير المقالة مدحة قبل كتوغدير جمهورية سوماليلاند halkan waxaan ku haynaa barnaamij magaciisa la yiraahdo daran kasi daran waa barnaamij aad iyo aad idin xiiso gelin doona waxaan ku furnay barnaamijka oo nasiib u yeeshay wiilka garabkayga fadhiya oo la yiraahdo Cabdirasaaq Saciid qiso xaqiiqiya oo aad iyo aad idinka yaabin doonta oo si toos ah isaga uga dhacday ayuu inooga sheekeyn doonaa Cabdirasaaq Saciid wuxuu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Burco ee gobolka Togdheer ku dhalatay aan waqti badan soo wada qaadanay haday tahay kubad haday tahay malcaamad dugsi quraankii waan isla soo kornay in badan aan saaxiib ahayn sida darteed waxaan jeclaystay in aan ku macsuumo barnaamijka maadaama uu tahriibay oo Liibiya ku soo rafaaday oo qisadiisa idin ka hor dhici maayo isaga idin ka horrami doona leerarkii Talyaanigu isagoo u muuqdaan dib loo soo celiyay dhowr jeer ilaa laba jeer qiso entertainment ah oo aad soconayso film baad daawanaysaa marna idinka qiiraysiin doonto marna idinka yaabin doonto waxa ku soo dhacay ayuu idinka sheekeyn doonaa ka sii hor dhici maayo marka ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdirasaaq Saciid Cabdirasaaq soo dhaw ku dhawaay barnaamijka sida wanaagsan aad soo qorsheyseen adiga iyo kameramaankaaga Suhayb aad baan ugu dhawaay wad maasan tahay Cabdirasaaq waxaan doonayaa in adiga iyo daawadayaasha aanan idin dhex gelin maadaama qisadaadu ay aniga kulay markii aad iiga sheekaysay aad ii qiiro gelisay ama aad iiga yaabsay waxaan doonayaa inaad nooga bilowdo taariibkaagii halkaad safar ka bilowday qisadu sida ay qisooyinku sida ay kulay hal qiso ma aha marba wax ka yaabiya ku soo marayay waxaan doonayaa inaad adiga iyo daawadayaasha si aanan hal mar idin dhex gelin oo qisada aad noo bilowdo mar su'aalaha maskaxda ku soo dhacaan ku weydiiyo aan khayr laga yaabo inaan ka dhex galo laakiin toosna soo dhaweyso mar labaad soo dhaw haddii aan barnaamijkayga aan idin wada galo waxaan tahay anigu horta aan iskiin baro magacaygu Cabdirasaaq Saciid Maxamed Cabdirasaaq Eelaaye waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan tahriibay Siro 2016 bishii 6aad ayaan safarkayga hayaan aan kaga baxay Burco ayaan isku ku gashay asaate keligay ma ahayn waxaan ahayn aniga iyo inaan loo yaqaan Cabdi Habibra Ibrahim al-Hubbi Ibrahim Caabi Allah uu naxariistay iyo marxuum loo jiray Cabdirasaaq oo hadeer tole Liibiya naga geeriyooday Allah yarxamir raahimiin Allah uu naxariisto sagay intii dhimatayba wuxuu reer bacay ahay afarteedu reer bacay waxaan ka baxnay halkan waxaanu baxnay maalin Rabadaana oo Khamiis ahayd waxaanu baxnay magaalada loo yaqaan Cerigabo subaxnimadii 7 subaxnimo halka ka baxnay safarkayga koobaad 7 subaxnimo ayuu ka nooga bilowday Cerigabo aanu baxnay waanu soomaneyn magaalada Cerigabo aan tagnay habeennimadii magaalada Cerigabo aan hooynay subaxnimadii baa inaan la iskaaya suray oo barnaamijku taxana ahaa oo magafa ah hadeer tolay nooliyeen kala garamay laakiin hadeer magaciisa waan sii xustaa Ismaaciil baa la oran jiray oo Cerigabo joogay ayaa soo dhaweeyay hudheel buu nageeyay ka bacdi gaari ay subaxnimadii saaray gaariga wana xasuustaa laftiisa gaari noo haabo ahaa odayga uu Mursal baa loo yaqaanay sidii waan ku baxnay sidii waxa ku galay magaalada loo yaqaan Boosaaso maalinka dambana waa sii soonay taraaguna aad iyo aad u dheer buu ahaa oo laga wareegayo dhul saxara ah oo waxa laga gabanayaa istabaha iyo goobaha boolisku joogaan aad iyo aad oo dhulkayma abaan maraynay oo dhul lama deegaan maraynay oo lugeynaysa may gaarigan saarnaa ka bacdi sidii baan ku tagnay habeenkii waxaan u hooyanay meel yar oo Boosaaso dusheeda maalintii dambe aan Boosaaso galay subaxnimadii dambe Boosaaso waxaan ku noolayn 7 cisho maalintii 7aad ayaan guryahan waxa deganaydeen magafeeshta ku ururiyaan aad iyo aad guryaha magafeeshta ku ururiyaan ayaan deganayn maalintii u dambeysay
ayaan niyow doon baan nala saaray meel aanan magaceedii haddeer tolo garanay laakiin boosaas xaggan ka soo xigta ayaanu ka baxnay oo dooni naga qaaday waxaan xasuustaa dadka xabashida iyo Soomaalidu inay fara ku tirsanayeen Soomaalidu way xabashidu aad iyo aad ugu fara badnayd wadadan waxa u badan boosaas marta Itoobiyaanka u badan dad Itoobiya Sacuudiga u tahriiba oo xaggan ka wareega iyo in yar reer xamar Yaman laga gashay in yar reer xamar si fiican baan garanay doontii sidii baanu ku raacnay adigu waxaanu saarnay doontii baanu wanaanayaa mumkin 3 saacadood 3 saacadood maalin iyo barkeed maalin iyo habeen iyo 4 saacadood iyo badh waliba ka bacdi doonta markiina la ka dejinayay ayaa badu aad iyo aad bay noogu kacday sawir kooban qoraxdana yariga badu aad iyo aad bay noogu yara kacday ka bacdi waxa dhacday in doonta markii aanu ceeriga u dhaweyn doontana la ka qubo raas baraas iyo waxa loo yaqaan budna la dhaco ka bacdi shan qof baan la ku qubay aniga iyo inanka loo yaqaan Cabdiwahaab iyo inan iyo hooyadeed iyo laba nin reer xamar 6 qof baan ahayn Allah yarxamur raaximin halkan waxaan laga dhimatay inaan aad iyo aad u qurux badnayd ilaahay ha u naxariisto maanta inantii hooyadeed ayaa inantii naga dhimatay inantu maalintii u dhasaasay nooga soo horjeeday oo inay yaroo iska qurux badan oo maasha Allah ay ahayd laakiin Allah yarxamur raaximin dadku waa dhimanayaan oo soconayaan waa tii ilaashanaysay كلي تي واحد بودي كرا كبعدي وحبي أنا هذا الكود يعني واحد شوقي ما يشلو يقانو صنعاء أما اللي يشلو يقانو العين أي واحد شوقي مدقاري صدح بلاد أدو مركز بي القاسانو مرني بداسانو مرني ودا حيسا يمن إيو meesha loo yaqaano Suudaan badda waxaan ku jirnay 7 cisho waa marka xagga Liibiya u socota xagga Liibiya u soconay oo saxaraha way ka Suudaan bad xagga baanu ka dactuurnay Suudaan baanu sii waan gartay kabacdi badda waxaan ku jirnay 7 cisho aniga iyo asxaabtaydii waan ku rafaadnay baddaasi waxay ahayd bad aad nin Marayn baa garanaya maanta haddii ay daawanayaan way la dareemayaan tahriibayaal badan ma daawanay tahriibayaal badan baa daawanay laakiin way la dareemayaan wixii dareemayaan waxaan doonta ku raacnay 350 qof waxaan ugu soo biiray badda dusheeda nagu soo biiray inaan hadeer talo loo yaqaano baxar oo nagu noqday 104 qof markii hore 103 baan nahay 104 qof baan noqonay baxar hadeer tole badii baa lagu magac daray markaa wiilkaya baxar baa la aad marka soo badda ugu soo biiray oo nagu dhashto doontu nagu dul dhashay oo gabadh uur xaamilaa baa saaran wana waxaan si mid badda ku sii sugayba may ayaa soo koray doonta may markaas baddaasi 7 cisho ku jirnay aad bay nagu kacday wallahi dhibaatooyinkeedu way fara badnaayeen alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin ilaahay nagu nabadgeliyay Suudaan baan galay rag rashiidiinta la yiraahdo oo aan markaa waxa ku beeray Sacuudiga ku beeray ayaa markaa Sacuudiga wax ku beeray halka inta yar dhexdeeda oo badda u dhaxaysa Eritrea iyo meeshan kale Suudaan dhexdeedu ku beeray rashiidiin baa ragnaa oo rag xoog aad iyo aad u qarwaaweeno nin walba darbiga leeyahay kuwii baan hayay kuwii adigu muddadii hayeen baan hadeer garanayn ragii adigu markii dambe wayna direen taraagii baan galay taraagii saxaraha sidoo ku galay saxaruhu dhibaatadiisu lahaa saxarahan marnay wallahi dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ay iska lahaayeen saxaruhu haday tahay biyalaan haday tahay cuntalaan haday tahay Allahumma salli ala Muhammad raf iyo rafaad iyo hurdalaan iyo waxaan ku oray ma garanaysaa ay noloshu way badan tahay way fara badan tahriibayana waa u sii aad iyo aad ninka ragga ana waa mar walba dib u isaga joogaa waa dib joog ragga socodku waa u door ku leh dumoodku daayo aad iyo aad marka Soomaali travel aw yeesho socon jireen marka wallahi tay dhibaatadaas aan soo aragnay okay absa waxaad iga sheekaysaa rafaadkaas aad martay intii Liibiya ka dhaxaysay Liibiya ka gashay aad iyo aad qisadaadu marka hadda qisadu bilaabmaysaa imika waa ka sheekay laakiin qisadu bilaabmaysaa Liibiya marka gashay
bal waxaad nooga sheekaysaa sidii wixii alla kulantay markaad saa liibiya u gashay liibiya waxaan galay meesha loo yaqaano markaygii koowaad liibiya waxaan ka galay magaalada loo yaqaano kufra dad badan baa garanaya oo magaalo caana oo magaalada liibiya uga soo sokaysa oo dhulalka uga soo sokeeya xoosh kufra ka mid ah ayaan galay xooshka waxaa haysan jiray nin hadeer toolo loo yaqaano ciise diin Soomaaliya ciise diin mee Soomaali ma ahayn Soomaaliya oo bixisay Soomaalida oo bixisay ciise diin ciise diin wuxuu dhashay waddanka la yiraahdo Eritrea uu dhashay waddanka la yiraahdo Chad miya meeshan aanu ka galnay saxaraha Suudaan waddanka Suudaani buu ahaa wuxuu ahaa wiil yar oo dardartiisa wata xoog weyn oo dadku ma qaban jiray markaa meeshu haystay marka aad iyo aad buu u garaaci jiray anagu meeshii iska joognaa ayaa ninka ciise diinna ka bedelay waxaan naloo keenay nin la yiraahdo Saami oo Eritrea ah Soomaalida aad iyo aad u necbaa runtii xaq hablaha dhibaatooyin fara badan buu ku sameyn jiray hadday garaacis tahay hadday koronto tahay hadday wax walba tahay hadday jirdil tahay markaa dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan buu ku sameyn jiray ma garanaysaa laakiin qof tahriibay marka horeba dhibaatada wuu bareeray aynu odhan karnaa waayahay cabdirasaaqow markii aad xooshkii gasheen adigu de kolley reeriya xaggan waa laysku yaacyaacay waa lacagtii waa la soo bixiyey magafaha sidee baad uga baxday oo baddii ku gashay oo dhibaatooyinkan waxaad ii sheegtay in hataa mar ay ku qabsadeen niman ka ganacsada jidhka bini'aadanka oo mar in lagu kala iibsaday ayaad ii sheegtay sidee bay markaa waxyaabahan ay kugu dhaceen wallaahi taysir waxyaalahaasi waxay u dhaceen adigu dee reerkaygii maanta maan ahayn hati aad iyo aad u fara badan ku weyn laakiin Soomaalida waxay ku mahmaahdaa xoolo darqi lama waayo adigu lacagtii bixiyey magafe weliba sidii ugu dhaqsaha badnayd ku bixiyey meeshii kaga baxay tagay meesha la yiraahdo caasimadda Trablis badii markii aan ka soo qabtay caasimadda Trablis baan tagay jeel anigoo ku jira jeel loo yaqaano Taajura anigoo ku jira ayaa ninkii mudiirka anigii afar inan oo kale inaan hadeer tola xasuusto maxamed inan kale isna farxaan oran jiray afar wiil baan ahayn sidii waxaan ugu iibiyay ninka jeelka haysta mudiirkii jeelku hadii jeer waxa yaamno dawara oo waxa ku haysa hay'adan qaxoontiga adduunka ayaa ku haysa dadkan meesha ka bacdi umay korkay kala socota oo may tirsanay marka anaga subaxnimadii inoo soo xireeyay subaxnimadii dambe tan hay'adu tirsan dadkii anaga afarteeda naga saartay marka hay'ada qoladan hadii ay tirsan lahaayeen waxa loo afarta qof weydiin lahaayeen laakiin intaan la tirsan ayuu naga saartay Chance buu helay wuxuu nagu afar qof oo soo shaqeeyay u baahanahay hadii jeer meesha marka soo shaqeynaysid oo tagaysaa gaajo waxa la yiraahdo gaajo ayaa meesha roodiye biyacad guri baad soo dhisaysaa hadaad doontid ka bacdi adiga Chance-kaaga waxa weynaysaa shid hawo fiican iyo in yaro cunto ah oo qofku deeyo bilaa ku jiray soo celisay ka bacdi sidii baan ku tagnay afarteedii inaan gaarigii baan raacnay gaariga xataa aan wax xasuusto waxa gaari xaajiyada waxa saarnaa qori dhashiika iyo laba qoryahan gacanta iyo mid yaro baaskoodaha yarara laba liibiyana saarnaa afarna oo ku saarnayn meeshan aan joognaa laakiin anagu caasimadii tahay oo ay Trablis tahay garan mayno dib baan ka garan ka bacdi caasimadda Trablis waa meesha ugu wanaagsan ee Liibiya qof Liibiyaan oo kala makarayso marka inaamadii ka mid ah ayaa nagu yiri waan xasuustaa wana la iibiyay maanta way noo dhamaatay khalaas dhulkii aynu ka dhimiyay makafeen ka dhimay dibna lagu celiyaa waan xasuustaa waxaan ku niyow tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakiila ilaahay iska tala saarta quraan baan hoosta ka akhrisanay wax iyagiiba xeebta dheegeedana la geeyay caasimadda Trablis markaas waxa dhacday barnaamijka halkaas baynu ku ziyara qabanaynaa xilligii salaada la gaaray sidoo kale qaybta labaad baan barnaamijka halka uu ku soo xirmayo iyo waxyaabaha inta ka sii dambeeya qisada aynu la sii socon doonaa waa qaybtii koobaad ee barnaamijka Cabdirasaaq Saciid iyo aniga oo Taysiir Cismaan waan la socon doonaa barnaamijka magaciisa waxa weeye daran ka sii daran YouTube channelka Dala Pictures ayaad nagala socon doontaan waa Suhayb Faarax
cabdilaahi oo kamarada dabadeeda inoo taagan iyo farsamada dhanka farsamada inoo qaabilsan wasalaamu calaykum